loo yaqaano Binance ama inaad leedahay shirkadda Binance ee application-kan hadda hortiina ka muuqdo inaad leedahay waa qasab. Application la mid ah oo fara badan oo waxba lahayn oo yacni scammers ayaa internetka ku jira. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Saxbal soo dhawaada meel badan dunida ka joogtaan. Channelka daawanaysan waa Cabdinuur, magacaygu waa Cabdinuur Xuseen. Sidoo kale waxaan igala socotaan Facebook-geena Digital Normal. Saxbal waxaan rabaa marka maanta inaan idin tuso cryptada marka la isticmaalayo ama qofka uu rabo inuu wax iibsado ama uu soo iibsado waxay leedahay exchange ama app laga dhex isticmaalo si wax loo iibsado waxna aad isaga iibiso. Tusaale waxaad rabtaa inaad coin iibsato ama waxaad rabtaa inaad suuqa soo gasho laakiin waxay isweydiinaysaa bal qaabkeen u iibsadaa muxuu yahay coin-kan iibsanay waxyaabahaas oo dhan inay ka dhex guuxayaan macquul ah. Waxaan rabaa marka saaxiibayaal inaan ku xasuusiyo marka koowaad inaad leedahay waxa loo yaqaano Binance ama inaad leedahay shirkadda Binance ee application-kan hadda hortiina ka muuqdo inaad leedahay waa qasab. Application la mid ah oo fara badan oo waxba lahayn oo yacni scammers ayaa internetka ku jira si micnaha marka aad u samaysato maadaama passport ama national ID card wixii aad haysato midkood lagaaga baahan yahay waxaan sameynayaa marka linkiga saxda ah ee Binance-gan aan YouTube-ka hoostiisa ama commentiga koobaad ku dhigi doonaa. Sidoo kale hadaad Facebook page-ka igala socotidna Facebook page-ka ayaan linki ku dhex dhigi doonaa. Halkaas ayaad ku dhufanaysaa marka step-yada iyo waxyaabaha lagaaga baahan yahay ayaad raacaysaa. Registration-keedu aad buu isaga fudud yahay, waa isdiiwaangelinaysaa passport-kaagi iyo national ID-gaagi iyo sawirkaaga waxaas gelinaysaa kadibna submit baa leedahay marka sidaasaa lagugu furaya. Marka lagu furo kadib application-ka markaad soo kacsato marka koowaad application-ka calaamadiisa waa taas Binance ayaa ku qoran. Calaamadiisa marka application-ka waa taas Binance ayaa ku qoran. Binance ayaa markaa ku dhufato marka halkan home-ka ah ayuu ku keenaya. Okay, halka home-ka markuu ku keeno marka waa isweydiinaysaa marka bal application-kan qaabkan u isticmaala. Marka san wajahada u joogtid application-ka marka hore waxaa ka muuqanaysa home, kadibna waxaa ka muuqanaya market, kadibna waxaa ka muuqanaya trade, kadibna waxaa ka muuqanaya feature, kadibna waxaa ka muuqanaya wallet. Marka waxaan isla arkaynaa bal afarta qaab mid walba wax ay tahay ee lagala socon karo inaan isla arkaynaa. Home-ta markaas u joogtid ee hadda aan home-ta ku dhufto halka waxa kugu qoran vibrate, halka waxa kugu qoran hot, halka waxa kugu qoran gainers, halka waxa kugu qoran losers, halka waxa kugu qoran new listening, halkaasna haddaan geeska u socdo waxa kugu qoran 24-hour volume market cap ayaa kugu qoran. Okay, marka vibrate-ka ayaan ka bilaabaynaa. Vibrate-ka waa maxay? Vibrate-ka markaan click siiyo halkan waxaad kala socon kartaa maadaama in ka badan 16,000 oo coin ay Binance ku jiraan ama coinisha la isticmaalo si guudba intaas ka badan yihiin adiga dhamaantood ma wada isticmaali kartid. Marka waxaad u baahan tahay qayb kamid ah inaad gasho sida hadda aniga ay igu dooran tahay Fetch, say maxaa la yiraahdaa Arwave, PTC, Solano, si waxyaabaha hadda say igu dooran yihiin oo haddaan hoos ku sii socdo xitaa Doc, Action, Banana, BNB, Ethereum, XRP, LTC coin qaar ba aniga hadda vibrate iyo marka oo halkan igu jiro si macnaha adigana coinkan mid kuwa lamid ay vibrate-ka ku galaan. Vibrate marka waxaa la dhahaa meesha hordhac ahaan aad u arkayso coinka aad u baahan tahay. Tusaale 5 coin ama 6 coin aad u baahan tahay marka aad rabtid inaad aragto ayaa waxa loo yaqaanaa marka favorite ayaad ku dhufanaysaa kadibna favorite ahaan ayaad u arkaysaa marka coinkii. Favorite hoosteeda marka waxa leedahay spot, feature, options ayaa leedahay waa 3 qaab oo ayadaba loo trade gareeyo laakiin adigu uma baahnid mar walba halkan waa inay ku haataa spot ku doornata. Marka waxa isweydiinaysaa sideen marka hal coin aan hadda tusaale u baahanahay sideen ugu soo darsadaa marka vibrate-ka on wajahada u dhigta wax weyn maha meesha calaamada raadinta ah ee search coin-ka ayaad ku dhufanaysaa kadibna tusaale waxaan qorayaa fill bal hadda u baahanahay inaan ku soo darsado mid kamid ah coinisha aan u baahanahay inaan vibrate-ka geliyo ayaan hadda ku darsanaya. Fill markaan qoro fill-ta marka waa coin fill USDT ayaad mar walba ka fiirinaysaa lacagaha way badihiin USDT baa jirto, USDC baa jiro, fill baa jirto, PTC baa jirto, FUSDC baa jiro, try baa jirto. Marka aad mar walba waxa ka fiirinaysaa inay tan koowaad ee USDT ay ku dooran tahay. Okay, marka isaan kugu soo baxda marka halkan waxa ka arkaysaa marka coin-kii ayaan doortay oo waxa rabo inaan vibrate-ka geliyo. Marka coin-kan waxyaabihiisa information-kiisa kale waa u imaan doonaa oo halkan price-ka qiimuhu ka marayo. Halkan waa information-kii oo ah markii meesha ugu hooseysa u gaaray oo all time low-giisa all time high-giisa waxyaabahaas kala socon kartaa. Halkan waa trading data yani datada qaabkay u soo gasho waaye. Marka aad waxyaabahan uma baahnid price-ka ayaan ku cilinayaa kadib meesha koreysa u jeedid falaarta share-ta ah meesha xaggan ka soo jirtay xidigta ah meeshaas ayaan click siinaya. Saa u jeedid markaan click siiyo buluug bay noqotay halkan waxa ku soo qormay added
to favorite ayaa isoo qormatay halkaas haddaan ku dhuftana waa ka qaaday haddaan ka qaadana waa ka qaadmaya remove it from favorite haddaan xidigta dhagsiyana cagaar bay isu bedelaysaa oo waxaa isoo qormaysa added to favorite ayaa isoo qormaysa haddaan ka qaadana waa remove it from the favorite markaan ku dhufanayo added ayaan dhahayaa xidigta saas ayay noqonaysaa marka waa ka laabanaya marka sidaan ku garanaya marka kaalmaha koobaad ayuu isoo gelayaa okay soo u laabtay waa u jeedaa fill waatana waxaa isoo gashay kaalinta koobaad maxaa la yiraahdaa qaab sareynta iyo waxyaabahaas ayay isoo gashay marka fill waatan hadda kaalinta koobaad ayay iigu jirtaa fetch baa ku xigta save baa ku xigta arwave baa ku xigta marka qaabkaas ayaad u isticmaalaysaa favorite-ka waxaa ku xiga marka waa hot waxaa la marka 24 saac soo dhaafnay kuwa ugu badan ee hot garoobay ama aadka u trending gareynayo lacagta ugu faraha badan ee ku jirta ee kulul yani suuqa marka la joogo price ahaanta kulul ee aadka loo isticmaalay ayaa hot loo yaqaanaa saa ujeedid BNB BTC Ethereum dab ayaa saaran calaamad dabka ayaa saaran marka waa kuwaas kuwa ugu badan ee marka waxay ka dhigantaa marka hot-ka ah ee trending gareynaya ama la gelay waxaa ku xiga marka waa gainers waa kuwa faa'iidada sameynaya 24 saac la soo dhaafay saa ujeedid waa last price xag kan waxaa ku qoran 24 hour charge ayaa ku qoran marka coination ayaa ah kuwa 24 saac ee ugu dambeysay faa'iido badan sameyn oo hadda saa ujeedid coinkan waxaa waaye 24 saac ee ugu dambeysay intaas ayuu dhaqaaqay waxaa waaye 226% ayuu dhaqaaqay kanna 52% ayuu dhaqaaqay kanna 34% ayuu dhaqaaqay kan kalena 32 kan kalena 23 kan kalena 16 saa ujeed marka haddaan losers ku dhufto waa arkaysaa marka waa kuwa lose gareeyay ama 24 saac la soo dhaafay lose ka noqday waa petaga waa vidit waa UFT waa wing qaabka ay u soconaysaa new listen waxa la marka coination hadda suuqa soo gal rabo ama 24 saac suuqa soo galiyay waxa ku jira marka kernelkaas waa bitgamekaas andu virtual baby coinankan 24 saac cusub ay suuqa soo galeen 24 hour volumes ama lacagta ugu badan market capka midalana waa 24 saac lacag soo gashan waa PTC waa Ethereum waa Solano waa XRP waa OM waa Sui marka halka waxa ka aragtaa marka waa 24 saac market capka coinanka ugu badan inay yihiin marka sidoo kale PTC ga ayaa market capka ugu badan oo 1 trillion si guud ay ku jirto maxaa la yiraahdaa Ethereum 198 yani waa 24 saac volume-ka ay suuqaas ka mari karaan okay halka markaan ka soo gudbo waxa ku xiga marka market-ka marka la joogo market sidoo kale wuxuu leeyahay maxaa la yiraahdaa spot feature iyo option mar walba coin iibsanayso waxaan kugu talinayaa feature-kan waxa la yiraahdaa inta badan waa xaraan option-kaasna ma wanaagsano marka spot-ka ku doornaato oo qaabka spot-ka ah ha ku ahaato marka halka market-ku waxa kala soconaysaa on kaliya waa suuqa oo haddaan saas dhaho wixii favorite-ka ii doornaa ayaa halkan ii soo gelayo hataan features dhahan waa ujeedaa sidoo kale haddaan option dhahana favorite-ka geebu leeyahay marka isaga inta badan market-ka waa suuqa yani qaabku u kala marmaray iyo waxyaabahaas iyo wixii favorite-ka aad dooratay ayaad ka helaysaa marka waxaa kaloo muhiim ah marka inaad ku dhufato meesha ku qoran tahay market-ka markaan ku dhufto marka waxaad arkaysaa marka qaabka market ahaan loo kala horeeyo ayaad arkaysaa oo waa ka saas ayuu u soconayaa marka oo suuqa intuu marayo ilaa hoos ayuu u socon karaa marka market-ka saa ujeedid kadibna haddaan ku dhufto discover waa wax maaragtay adiga aad discover garanayso iyo maaragtay intaas anada Solano EC EBTC waxyaabaha laga recommended gareey ay kamid tahay oo leeyahay marka kuwaad iibso laakiin aniga shaqal kuma lihi oo marka wax iibsanayo waxaan ku iibsadaa research aan si gooniya u samaysto haddaan ku dhufto marka qaybta market-ka ku xigta ee trade-ka ah halkan waxaad arkaysaa marka convert waxaa la yiraahdaa waa marka koowaad waa marka aad rabtid inaad isku bedesho coin aad haysatay aad coin kale u bedesho coinka inaad iibsato oo buy and sell samayso iyo inaad isku dhufato laba ayay kala yihiin hadda aniga Solana haystaa saa u dhuftaan maximum ku dhufto oo xabad Solana ah oo coinka kernel dhahan u bedelo 409 kernel ah oo coinkaas 409 ayaan haysanay ayay ka dhigantaa marka haddaan kernelka aan rabo inaan kor u bedelana calaamadan ayaan ku dhufanaya kala bedbedelayso marna tan baan korgeynaya marna tan baan hoosgeynaya marka mar walba lacagta aad haysatid iyo coinka aad lacagta ka haysatid ayuu kor ku soo dhigaya kadibna halkan waa ka dooran kartaa waa coinka aad ku bedel lahayd Trump official Nero Dox USDT waxaad ka dhigi lahayd buu halkan ku soo dhigayaa marka taas adigu baan kugu tusay aniga uma socdo waxa kale oo ayadana muhiim ah oo meeshan laga dhex isticmaali karaa waxaan kala muhiim ah qaybta ay ku qoran tahay marka B2B wali waxay u fiican tahay dadka Ethiopia joogo oo yani ama Soomaaliya iyo meelaha joogo wadankooda ayay ka dhigan karaan hadda aniga Ethiopia jooga saa u jeedid korka waxay u qoran ETB ama waa ETB qaabkan wax u iibsan karo waa Ethiopian oo lacagta Ethiopianka hadda halkan liisoo dhigayaa
tusaale buy iyo sell markaan sameynayo aniga Ethiopian baan isticmaalaa. Marka aniga wax soo iibsanayana waa buy, marka aniga iska iibinayana waa sell. Marka buy waa tas, sellna waa tas. Buy waa tan, sellna waa tas. Saas ayaa u kala garanaysaa. Marka lacagta ii dooranaysa u jeeda hadaan halkaa ku dhufto price-ka ii dooran waa ETB oo calaamada waxa loo soo gaabsaday Ethiopian bir. Adiga hadda Soomaali joogto Soomaali ka dhigo, haddaan waddan kale joogtana waddan kale ka dhigo, laakiin halkaas waxa ku qoran aniga Ethiopian bay ii tahay, ETB ayaa igu qoran. Okay, markaan coin iibsanayo marka qaabkan ayaan u fiirinayaa. Marka coin ba coinka ka hooseeya ayuu macnaha lacagtiisa ay ka badan tahay. Mar walba waxaa la recommend gareeyaa marka kuwa ugu horeeya inaad wax ka iibsato haddii aad weyso lacagta kugu filan ama limitka ay dhigteen ma ahan. Tusaale qof walba limit gooni ay wax laga iibsan karaa. Hadda kan koobaad saa u jeedid 156 ku qoran tahay, waxa waaye limitka laga iibsan karo waxa waaye waa 5,000 oo USDT ilaa 6,000 oo USDT ayaa laga iibsan karaa. Waxa ugu yar ee laga iibsan karin waa marka waa 40 USDT. kan ku xigana 156.57 ayuu xabadka USDT-ga ahaa iibinaya. Marka 156.57 ayuu halka xabba iibinaya. waad garan kartaa marka xabadka USDT-ga ahaa macnaha hal baad ku dhufanaysaa 156, macnaha halka xababa intaas ayuu jawaaba ka dhigan tahay. Marka qaabkaas ayaa wax loo iibsadaa. Waxaa kale oo soo heray sell markaad sameynayso markaad iska iibinayso. Waxaa xusid mudan qofka marka wax ka iibsanayso ee buy garanayso markaad ku dhufatid ba waxa soo baxay information-kiisi, kadibna waxa soo koobi garanaysaa numberka uu isticmaalayo. Hadduu bangi yahayna bangiga soo koobi garanaysaa, bangigaaga tagaysaa, lacagta baad bixinaysaa, screenshot baad ka soo qaadaysaa, isla meeshan baa ku soo laabanaysaa. Kadib waxaa leedahay marka notify seller, lacagta waa bixiyay, screenshot ka gelinaysaa, kadibna lacagtaada ayaa lagu soo dirayaa oo isaga ayaa laga soo jarayaa bay ka dhiganta. Markaad sell garanaysidna waa marka adiga aad lacag haysatid oo aad haysatid USDT ama dollar aad haysatid oo iska iibinayso. Tusaale hadda qofkan Abyssinia, Cooperative Bank of Oromia, Saudi CBE, Commercial Bank, Awash waxaas la isticmaalaya. Marka adiga kanaad rabtid in lacagtaada kugu soo dhacdo maadaama aad iska iibinaysid oo USDT haysatid ayaa dooranaysaa. Hadda Abyssinia haysatid Abyssinia ku dhufanaysaa, kadib qiimaha waxaad iska iibinayso hadday $50 tahay, hadday 30 USDT tahay, hadday 100 USDT ayaad gelinaysaa, kadibna saas ayaad ku soconaysaa. Marka buy iyo sell 10 gooni ayaan ka sameyn doonaa insha Allah. aad rabtaan waxa waaye muuqaal gooniya commentiga igu soo qora, 10 gooni ayaan ka sameyn doonaa. Waxa ku xiga marka waa feature-ka marka asaga inta badan aniga ma isticmaalo, yani copy trading iyo pot iyo option iyo waxyaabahaas loo isticmaala. Waxaan kugu talinayaa marka qaybtan features-ka in maadaama xaran la yiraahdo way ka buuxdaa inaadan isku isticmaalin. waxa ku soo haray marka waa wallet-ka marka waxaad ka arkaysaa halkaanayta overview haddaan ku dhufto waxaad ka arkaysaa waxa aad haysatid, lacagaha kugu jira. aniga hadda suuq waa ka maqanahay $135 bay igu jirta oo xabad Solana-da igu jirta. wixii kale waa iska iibi maadaama suuqa bearish yahay, dib baan u soo geliyaa insha Allah. laakiin qaabkan ayaad u arkaysaa marka wallet-kaaga. waxaa jira marka wax loo yaqaan spot wallet iyo funding wallet. saa u jeed overview waxa ku xiga waa spot waxaa la yiraahdaa lacagta suuqa kugu jirta meesha ay ku jirta. Solana saa u jeedid coinankaas hadda aan ku jiraa. laakiin funding wallet-ka marka ay tahay waa every hour. maxaa yeelay funding waxaa la dhahaa meel aadan coin ka iibsanayn laakiin lacagtaada bangi ahaan camal ay isiga taalayso. haddaad spotka ay lacagtaada ku taalo waxay ka dhigan tahay lacagtaaga way shaqaynaysaa oo coin baa ku iibsan. laakiin haddaan spotkan intaan ka qaado aan fundingka geeya waxay ka dhigan tahay marka lacagtaadii ma shaqaynayso, waa iska fadhida. sidee loo geynayaa waa su-aal meesha mudan. had spotka ay lacag igu jirtaa marka aan rabo marka inaan fundingka geeyo halkaas waxaan ku dhufanaya ku qoran tahay transfer markaan dhaho marka uu isoo qabanaysaa u jeedid from funding wallet to spot wallet. aniga marka maadaama ay lacag igu jirto spotka waxaan leeyahay marka from spot wallet to funding wallet. halka haddaan ku dhufto maximumna way isoo baxaysaa. marka qaabkaas ayuu u shaqeeyaa marka si guudba. laakiin waxaa ka horeeya coinkaaga inaad iska iibiso oo lacag ahaan uu meesha ugu jira marka hore, kadibna marka aad u bedesho spot wallet to funding wallet. marka si guud casharkeena Binance-ga maanta aan ku kala baranaynay asoo hordhaca intaas ayuu ku saabsan yahay. waxaa xusid mudan Binance-gan meelo kala ha ka iibsanin, linkiga ayaan kuu soo dhigayaa, halkaas ka samayso waxaad iibsanaysa iibso. suuqana waa xilliga wuxuu ku jiraa bearishka ah oo hadda la soo gali lahaa. xilli hadda ka fiican oo la soo gali lahaa ma jirto, maxaa yeelay inta badan suuqa dhulka ayuu yeelaa. waxaan kugu talinayaa marka haddaad wax haysato inaad xilligan soo gasho. waxa waaye linkigana Binance-gana commentiga ama description-ka ayaan ku dhigi doonaa, halka iska diiwaangeli. waxaan rajaynayaa insha Allah guul baan ku rajaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.